دوان شيء ما رحت وقت هطور السيل وقول الحكاية وقت اللي حيرات الطلبان اللي يقع هذا على ما يفهموا فما They left me here on the island. I will settle. I will call this the island. I'll probably get sued by the numerous residents. Someone's coming back to rescue me. I thought you were gonna leave me. أهلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتها شرفت لي ملك الصوت العالم كشفتان ولكن المسكين كالله عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي وين كسلام مقالة ويل مريض قبل قاسم من الصوت دلك مريجنك هذا جدام با ويل كيرا مسعود أما سعود أو أي قالوا هو يدي سكاقاتين لقيين حافظ كله أو سومالي دولا بهاي marka wiilkan naaska ayuu nuugaa laakiin hooyadiis waa laga qaatay saduu jadaamba 7 bilood ayuu jiraa naaska ayuu nuugaa ma sha Allah laakiin nasiib darro hooyadiis waa laga qaatay aabihii iyo hooyadii iskhilaafay awgood tanna waa mid kamid ah qayb kamid ah burburka qoyska Soomaaliyeed ku haysta qurbaha iyo dibadaba walaalaha qiimaha iyo qaayalaha waxa wiilkan uu nasiib ku yeeshay in qoys Soomaaliyeed ay hadda gacanta ku hayaan laakiin qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ilmahooda waxa qaata oo haya ama yani xadaana u noqda ama adapt gareeya dadka gaalada ah hadii ay ku dhmayo laakiin Mas'uud wuxuu nasiib u yeeshay in dad Soomaaliyeed asaga lagu wareejiyay ma sha Allah ilaahay xafdi ammo isoo farxsan yarag وريا سومالي ومسعود الله يحفظيه إلهي سبحانه وتعالى هدور عرورتنا لكن وبربركا قويسكا قربها السلعة يسحرير تكجرة ويلكان سوماليات ونصيبه يشيء إن قويس سوماليات أي قعنتكو هيان الحمد لله رب العالمين وفرحسين هاي مسعود إلهي يحفظيه إلهي نوحا كبر يا آبائي وهيدا نبط يوناك الله دعليقو أبي هويدو waxay gaareen heshiis hordhaca maantay waa anagii tagnay meeshaas iyada ah saduujeedeen heshiis hordhaca ay gaareen in maxkamadan la darab gareeyo aabuhu uu maartay ogolaado wiilkan hooyadiis in loo soo celiyo sidoo kalena hooyaduna ayaduna keeskeeda ay darab gareyso oo ay maartay wixii ay sheeganaysa dib ay iska cafiso taas ayaa la isku afgartay insha Allah tabaaraka wa taala haddana waxaan insha Allah taala aan rajaynayaa inaan u ambabaxo halkaas oo aan u tago wiilka xaaska ah wiilka Mas'uud abihiis hooyadiis wiilkan ayadiis oo aabaha hooyadii dhashay inaan u tago oo door weyn ku leh ama ka ciyaaraysa qayb weyn ka ciyaaraysa inay heshiiyaan iyo inay kala tagaan labadan dhalinyarada ah ee isku dhiban oo maartay dib weyn soo kala dhaxgalay marka saad u jeedaan waa ilmihi yarka ahaa Mas'uud oo hooyadiis laga qaatay lana xukumay inay 2 sano u soo dhawaan karin waxaan rajaynayaa insha Allah taala sidii maanta odagaya wiilka iyo gabadha anigu aan dhaxgalay oo aan xaafadii ka baxnay odagii raadinay aan meel beer aan soo tagnay halkaas ay fariisteen labadooduba ay qaracmeen hooyada aabo mid walba uu iskiis u oodayo arintiina yani balguur ha noo dambeeye xabibi xayaati ayada ha noo dambayso taas waa la isaga imaan doonaa laakiin bal kayskan horta hore in la daroob gareeyo gabadhaana ilmaheedaan loo soo cesho wiilkeeda loo soo cesho oo naaska ay nuujiso weliba 7 bilood ayuu naaska nuugaa marka hooyo la'aan khatar weeye marka ilma naaska nuugayo aad garanaysaan marka alxamdulillaah taas ilaahay waa nagu guuleysiyay aabihina waa aqbalay hooyadina way aqbashay in ayaduna wixii eed ay sheeganayso gabadha rayaan hadii ay ku idmaayo ay kiiskaas darab garayso aabuuna hadii ay ku idmaayo asaguna wiilka la qalaya iyo gabadha hooyadu khatar bay ilmaha ku tahay waxa soo dhan uu yani uu darab gareeyo ilmahaana la badbaadiyo hooyadiis loo soo celiyo ma sha Allah Allah xifdiyo Allah dhawro Mas'uud wuxuu nasiib ku leeyahay hooyada xaafadda la keenay ayaa xaafad ehelkiisa Soomaaliyeed ay joogaan oo dad Soomaaliya
ama yani dadkiisii ayaa loo keenay laakiin saan idiin sheegay waxaa jira boqolaal iyo boqolaal carruur soomaaliyeed ah oo aan nasiib u helin inay helaan qoys soomaaliyeed sida mascuud oo kale ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hooyooyinka iyo aabbayaalka soomaaliyeed caqliga kusoo celiyo ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu dalkeenni noo hagaajiyo oo uu ka dhigo maaragtay haddii ilahay kudmahayo sidoo kale waxaan ilaahay ka baryayaa inuu qoyskan barakeeyo carruurta haya wiilkan haya ilaahay subxaana wa tacaala It's okay. It's okay. It's okay. Please. أجر ما تجلس عادي أجر. ما والله أجر ما تجلس. وان كان أباها الصوماليات أو ويل كان هيا والله المقعد معه. عثمان محمود جبريل. عثمان محمود جبريل. عثمان محمود جبريل الشيخالي ما شاء الله جزاك الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. إلهي كأجر سيو. وأن علماء سادو جدان ويعني علماء ما شاء الله على بيتك ما شاء الله خير الله سيو أولادي السنة ما شاء الله بركيه qoysaska Soomaaliyeed maxaad kula yani ballamaysaa waxaan kula ballamayaa in alla ka cabsi iyo walaalnimo iyo mataqaanaa heshiis wanaagsan lagula dhaqmo carruurta in la badbaadiyo hadda carruurtan ilaahay baa ma sha Allah ku waafajiyay in gurigiisi ay joogaan labaad ان سو aragta carruur badan baa gaaladu qaadataa oo aan jaanis u helin gurigan kale nasiibkan kale maxaad diiray waxaan dhihi lahaa in khilaafka iyo sharka iyo buuqa waxa la wixii dhibka keenay oo dhan la iska ilaaliyo soo aragta gaalada in loo dacwoodo ama arrin xun weey ya arrin xun laga fiican marka ma leedahay odayaasha iyo culamaa u diinku inay ka shaqeeyaan xalinta khilaafaadka qoyska Soomaaliyeed waliba u istaagaan oo arintaas waa la dayacay Soomaha nacam marka maxaad leedahay qoysaska qurbi waa ugu dambeyn qoysaska qurbaa maxaad leedahay waxaan leeyahay niman yahow dad muslim baa leeyahay waxa la wixii dhibaato keenay hal iska ilaaliyo ubadka loo naxo hal isu naxariisto insha Allah ta'ala jazakallahu khayr haddana waxaan la joognaa haddii ilaahay ku idmahayo jazakallahu khayr allah ku barakeeyo adii carruurtaada ma sha Allah adii carruurtaada allah ku barakeeyo dad iyo diin iyo dunya carruurtiisa ma sha Allah ku barakeeyo carruurta haddana waxaan la joognaa ma sha Allah Mascuud Yare iyo mid kamid ah odayaasha ama guddiga ama hogaamiyaalka magaalada Wilmer oo ah duriyadii Sheekh Isxaaq haddii ilaahay ku idmahayo waar magacaaga noo sheeg magacayga waxaa aniga Cabdiraxiin Haliyey de haliyey reer Hargeysa oo garanayaan Soomaaliya reer Burcad haliyey qaran aduma reer Burcad tamis reer Hargeysa waar de haliyey qaran waa kana reer Hargeysa waar waa haliyey qaran ninkan wuxuu ka shaqeeyaa African Development Bank faraca branchiga ayuu halkan u joogaa horumarinta bangiga horumarinta Afrikaanka waa nin master degree haysta Soomaaliya bal ku soo dhawow microphone aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ka soo joogto iyo runtii waxaad ka leedahay carruurta dayacan qurbaha ku dayacan sida Mascuud oo kale qurbahan aad iyo aad baa arintii dadka Soomaaliyeed ugu dhiban yihiin siiba dadkii carruur faamiliyadii waxaan kula talin lahaa inay dadku ay ka fogaadaan waxyaabaha keenin carruurtooda laga qaato iyo in gaalo loo dhiibo maanta waxuu ku nasiib baday cunuga yaray waxa hayaan wiil Soomaaliyeed runtii aad fiican oo aan saaxiibnahay runtii ilaahay khayr ha siiyo عثمان بانا ونفنتي آذ في عن علماء أهل الدين إلهي بركي ضد يديني الدنيا بالله كسي إلهي بركي إلهي أشرك كسي والله رنتي ما تروح تشوفها تقولوا وجوه عنقو الحمد لله وإحنا اللي هي دبع صلاة إلهي خير كسيو ما تروح نوقتهم إلا مينيابوليس أرنت واضح كشيء آديات بنقول فرح سنة هاي إلى صار معلومات كنا ماشوا والدين تحكوا تللها إلى هشيانو سان المهو اللغة قادنين أي نقطة أنت مارت الحب والعشق بعرفت صار قناص يا سلام برقيساوي يا سلام دريد عاشق وتغرس لي زيتوق يا دريد وعاشق هذا بيقول رسالة هوا يا سلام المها على لالي وقلب حكميسن وبدك إن لا تربيده وقعنت لو حي ويا أنا أبان هاي عرور له وكنا حق المها سماعين لقاته قال لك عنت لو صح هذا عشان أني لها قرار سيو ننفي عم باترونتي وفي عم بالك الشقيسي والله آد بالغ فرحني هيك أرنت إنه ودودها إن شاء الله وحنجينا هنا خير كنا معته سيد نوش يكتي كل أرنتي هردع هيد مال في عام مرسا أنا قرون كشقينا أنت دبي إن نسكوك هنا فاميلي جو يسكوي مع دانو أرنت أنا مال في عن لجارسيو المهر وارد كنت عن تلوجري إن شاء الله ما شاء الله يعني هذا هشيس كي وضع يهردعها ما شاء الله ما شاء الله
heshiiskii hordhacaha waa dhacay in aabbaha iyo hooyadu ay kiiskii maxkamadda ay daroob gareeyaan wiilkana hooyadiis loo soo celiyo aabbahana wixii gabadhu dhib ay sheeganaysa ay dayso iyaduna ay iscafiyaan haddii ilahay ku idmahayo marka mascuudna hooyadii loo soo celiyay iyo naaskii hooyadiisa uu nuugahayay waan rajaynaa insha allahu tacaala marka jaariyadda qurbaha meel kastay joogto soomaaliyeed maxaad leedahay waxaan leeyahay dadka qurbaha jooga war waxyaabaha tafaraaruqa keena waxaasaa ka mid ah waan isku duubnaada oo cadow gacanta isku gelinina war haddaa isku dhacdaan bilaadanku waa isku dhacaan waxa kula aadama khata wa kula khayr khata tawaabun dadku waa isku dhacaan heshiiya dhexdiina maaragtay mawadda iyo raxmad sameeya oo gaal ha isku wicina oo cadow gacanta ha isku dhiibina oo ilmihiina yaan lala wareegin waayo ilmaha dhowti waxa lagu korinayaa dhaqan gaaleed runtii mana qurux badna haddaa ilmaha hayn karin hadday dadku isfahmi waayaan waxa qurux badan ina dabacsanoo ay si qurux badan ku kala tagaan iyagoo ilmahoogii haysta inay war isfaham weyne fantashiro fil ardi waqtuqbi fil marka dadku ayagoo aan hadda maanta markay isu tageen odaguna waa ooyey meel cilla markaan isugu geeyey hooyaduna waa oyday war walaalow gaalada ilmahaan yaan ka qaadan adigii yaan lagu xirin anigii yaan la xirin anigii gabadhii yaan la tarxiilin kulli dhib baa soo gaaraysa ilmihii gabadhii hoos marka waxaan isla dhammaynay markaas markii la soo caqli celiyey in kayskii la daroob gareeyo marka baaraka allahu fiikum waxaan idin leenahay ilaahay subxaana wa tacaala mascuud allah xifdiyo hooyadana allah xifdiyo ya salaam mascuud ma sha allah waxaan ku gabagabaynaynaa إن شاء الله تعالى مسعود ما شاء الله الله يحفظيه ما شاء الله يدندوره يا ما شاء الله قاعد بيصور هذا إن شاء الله تعالى دماغ السلام عادي هذا ما صدق مقعدي أنا مقعد على حرسي وحنا دمان دبينا الصوماليين ماشي نكون جيران العصر عادي هذا وقف قال أنت حرسي قالها برقدري نو حرسي قالها برقدري أنت كنا سيسع ما العيرية ما السعدية ولا صبرت عيمها الحاج سليماني مياه بعد الصومالية ما شاء الله برقدري ما شاء الله ما شاء الله كيف قد ما يستعمل ما عندنا الصوماليين وإن سلام دب عصر نونا اللي جوا ما أنت هذه أرنت أو قرب قلي أصلا غير الله سيو لما على أمد الصوماليين في ملين تدقال لما أنت على إنه هشيا مرة البنا إيش قال إسكو ديبين إيش إسكو دين إنه إسكو دعوين وعصر لابد يسوي إيشو أيرا وكلا دكتور ما قرد صح مركا المهم يعني إسكو ديبين يعني إسفسارين يعني إسربادين وبد كانوا كيشل كون فعلا برين كون فعلا ما عندنا كون فعلا هاسكو دين إنا قالوا ديبتو مرة البو صغير كاس إنا أديك حفظت إسكو دين إن شاء الله ما شاء الله خير الله يسيو ما شاء الله هي أديك أنا وعم كليه إنه بقول هذا ما صنطاي ولكن ما شاء الله أسمعنا على القرب قال حاج عثمان مرنا ولكن مرسدين ما شاء الله لما أنت كنا نولي وجوه ما قرتين خير الله يسير جزاك الله خير كاسنا ولكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا ويلكي يركها ومسعود يعني أو هالكان شغنا الحمد لله هو يدا لبسنا يا الحكومين السعودية كرين ويلكو ناس كيونوجا إن شاء الله تبارك وتعالى وحنا جينا إن سيدا الشيء كهرنا عن جري مانتي أو أن هو يدا يويلكي إسقابي أن معلا سوقيين أين إسكو أفكرتين إن أي أرنتان كيسك أي دروب جريان حدنا وحن هذا يا هو يدي ويلكا أبا مسعود أبيس وهو يدي الشيء ويلكا أيه أو أيضا مارت قيبته بقولك بسدية حكومة ويل كذا إن أي أرنتها شيء كسرنا لقاته إن شاء الله تعالى قبل النساء الشيء قف كستو أو تاجري كرا فضلا هالصوت تاجره ريان عبد الله بدل أيال لها حوالي التوكل وقصادر مقعد قصة ريان عبد الله بدل تلفون كينا قصة قرسي أنا ونوش شيء كستو عن سوق عيو أيضا واسكع شط بانتاي مركب ونوش شيء لكن مقعد قصادر فضلا ريان عبد الله بدل أيال لها ما شاء الله ريان عبد الله بدل حوالده توكل مقالة ويلمر WILLMAR ويلمر مينيسوتا خيرك الدنيا خيرك خرب الله ينسيو قيس كان إلهي نبضي يشيس يولا لما الله دحدقو خير ما ندير رجينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام مليون إن شاء الله ما شاء الله جزاك الله مسعود بس كده يا برك نكي بقى قايل ايه مسعود عمار